بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. qaybtan waa qaybtii labaad ururada iyo axsaabta diiniga ah oo ummadda dhibka ku hayo calooshooda u shaqaysanaya. lisheykh xasan xabeeb raximahullahu tacaala. oo ay ka sara marinayaan islaamka iyo sunnada iyo dadkeedaba aaraada iyagu ay qabaan waxa iyaga u muuqanaya ra'yiga inay sunnada ka sara marinayaan iyo islaamka ayaa maaragtay ku xambaaraysa. taas waa mid. ta labaad waxa weeye ayagu waxay iskala wen yihiin inay xagga u hoggaansamaan marka u caddaado. xagga inay u hoggaansamaan iskala wen yihiin oo way ka anafoonayaan. ilaahayna waad ogtihiin wuxuu yidhi waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica. ninkii cibaadadiisa iska weynaysiiya waa cibaadadiisa. xagga inaad u laabato waa cibaadadii ilaahay wey. xagga markuu kuu caddaado inaad u laabato ood macsida ka toobad keento waa cibaadadii ilaahay kugu lahaa wey. ninkii cibaadadaa iska weynaysiiya oo ka santaaga oo kibra fasayaxshuruhum ilayhi jamiica. ilaahay waa ayagoo dhan waa soo aruurin doona. ayaga waxa ku xambaaraya wax kale ma aha, waa istinkaaf cala alinqiyaad lilxaq. xaqa inay u hoggaansamaan ayay ka santaagayaan. maxaa yeelay muddada aan idiin sheegayo saasaa loogu caddeeyey. ilaa maanta weli waa dul sugan yihiin. ilaa maanta weli way hayaan afcaashii ayadahay. taxasubkii dadka ugu yeerayaan, dhiiggiyay daadinayaan, waa kada. meel ay ku toobad keeneen lama arko. in badan waxaan maqalnaa xisbiga hebelhu wuxuu samaystay go-aan, gefkii asaga ahay oo dhacay go-aan buu ka sameeyey oo jamaacadu ay samaysay ayaan maqalnaa. qaraar buu qaatay xisbigii, qaraar ayuu qaatay ayaan maqalnaa. mana maqalno mana aragno faa'iidada qaraarkaas iyadaa. wax faa'iidaa ka soo baxa qaraarkaasna male. dhiiggii muslimiinta la daadshay hadduu khada ahaa, dhiiggii ha la iska daayo kama soo bixin. taxasub iyo tafaruq khada ay ahayd, ha la iska daayo kama soo bixin. dadkaan aan dhagrayno dhagartooda aan iska dayno kama soo bixin. khada weeyaan oo laleeyahay bis hoosa qaraar laga qaadanaya. maxaa yeelay horaa qaadadu waxay isku waafaqeen in haddii gaf ay sameeyaan ay iska muujistaan dhexdooda oo fima baynahum siran ay ayaguna ka beri noqdaan fima baynahum oo aan dadka loo iclaamin. waxay isku waafaqeen inay qaarkood qaar kale raaligeliyaan wixii alla subxaanahu watacaala ka caraysiinaya ay ku raaligeliyaan. falaa xawla walaa quwata illa billah. waxaa kaaga daran intaas xisbi kale gef uu galay sheegi karana lama arka iyadan. maxaa yeele midkaan kalaba faruuqaaya buu sheegayo marka lama sheegi karo. waakada macaasidii iyo dunuubtii oo dhan saasay waxay ku noqdeen kuwa sidaas iskaga koraayay noqdeen. wax taaba kara lama arko, wuu iska socdaa, dadka dhexdoo ka socdaa. sababtoo ah xisbi walba wuxuu ka baqayaa haddii isaga uu sheego kan kale intiisa in kuwaas kale isagana ay sheegaan inta uu leeyahy. marka macaasidii saas isaga bulasha. jawaabta su-aasha saddexaad waxa weeye waa sida maarta adigu hadda axsaabtan siyaasigaasay yihiin oo kale. axsaabtan siyaasiga waa arag intii markaas ayaga isku jaalaba wax iskama sheegaan. inta isku jaala isla jirta oo masalan aragti isla qabta wax iskama sheegaan. xumaanta ay qabaan ma sheegi karaan, laakiin kuwa ay kasoo horjeedaan xumaantooda waa sheegi karaan. ninka hebela, xisbiga hebela, koox hebla a sidaa yeeshay xagga yeeshay waa dhihi kara. laakiin kooxdan ay isku jaalka yihiin xumaanta ay samayso ma sheegi karo. sababtoo ah waa jaallihiis wey. hadhow waa isagana balaayada ka sheegaya. marka waa las wada ilaalinaya, macsidii aa laysku wada ilaalinaya. su-aasha saddexaad jawaabteedana waxa weeye maxay tahay faa'iidada ku jirta toobada in la iclaamiyo. faa'iidadu waa faa'iido weyn. horta dadka iyaga ah oo maaragtay la lumiyey kuwaas faa'iidada ugu jirta ayadu waa iska daahir.
ninkii la lumiyey haddii ninkii lumiye u yidhaaho war waan ku lumiyey hadduu yidhaaho faa'iidadiisu iska daahira malaynaya taasu jawaabba rabta alxamdulilah haddaad lumiday oo hadda ii caddayday lumidii waa iska daynayaa waan ficlaanayaa u leeyahy laakiin faa'iido aan la fahmi karin ayaa jirta waa maxay faa'iidadaas faa'iida waxa weeye dadkii ayagu wax lumiyey ayaa faa'iida ugu jirtaa toobada inay alaamiyaan faa'iida ugu jirta faa'iidadaas waxa weeye hadday nasiixada aqbalaan oo ay toobad keenaan oo alanan ay u toobad keenaan faa'iidadu waxa weeye in dembigii dadkii ay baadiyeeyeen dembigooda in laga fududeeyo dadkii ay baadiyeeyeen dembigooda ayaa laga fududaynaya madan shalay hadda ay ku dha maantana waa toobad dadkii ay baadiyeeyeen dembigoodiyaa ka fududaanay haddii ay toobadda iclaami waay oo ay xaqa cimaadaan oo ay diidaan xaqa inay u hogaansamaanna waxaa ku sugnaatay kitaabka iyo sunnadaba in ay maalinta qiyaamo imaanayo dembigoodii iyo dadkay baadiyeeyaan ayaga raacay baxsan inay imaanayaan siduu ilaahayba subxaanahu watacaala qur-aanka uli liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yawma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saa'a ma yaziruun waxay xambaarayaan dembiyadoodii oo buuxa maalinta qiyaamaha oo waxba ka maqnayn iyo dadka cilmi la-aan baadiyeeyeen dembigoodii bay qaadayaan alaa saa'a ma yaziruun ya allahu akbar allahu akbar ninka maalin walba aayaddaas dhegiisa ay ku dhacayso ama akrinaya kitaabka ilaahay ee dad laayay muslima ee dad muslimiina kala qaybqaybiyey ee uu muslimiin baadiyeeyey oo dhiigoodii daadshay ya oo dadka asagu maaragtay shir ugu ahaa ama imaam ugu ahaa ya ee aayadda akrinaya ee aan qalbigiisu marna uusan dhalaalaynin xumaantaas awgeed oo aan toobad keenin ee weli ku sugan dhiigoodii hala daadsho weli ku sugan ya xisbigii sidii ha u dhisnaado aan taxasubsanaano qaybsanaano weli taagan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ninkaa waxa weye waa nin shaydaan qabsaday wey sidoo kale alla wuxuu yihi qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illahi xataa idaa ja'athum asaacatu bawta qaaluu ya xasratana ana fiiha wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim alaa saa'a ma yaziruun dembiyadoodii ayagoo xambaarsan bay imaanayaan nimanka ayaga dembigoodii ayagoo xambaarsan ayay imaanayaan oo oranaya shallaytadaye waxaan gabood falnay ayaan ka shallaayayna iyagoo leh sidoo kale alla wuxuu yihi walayaxmiluna asqaalahum wa asqaalan maca asqaalihim walayus'aluna yawma alqiyaamati cama kanuu yaftaruun way xambaarayaan culeysyaalkoodii iyo culeysyaalkoodii ay la jiraan bay xambaarayaan maalinta qiyaamahana waa la weydiinaya cama kanuu yaftaruun wixii ay been abuuran jireen ayaa la weydiinaya waxay been abuuran jireen waa la weydiinaya wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yihi rasuulkuna man dacaa ilaa hudan qofkii hanuun dadka ugu yeera kana lahu min alajri mithla ujuuri man tabicahu dadkii raacay ajarkooda kaluu yeelanayaa laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-an kaasu ajarkoodii wax ka nusqaanin maayo waman dacaa ilaa dalaalatin qofkii baadi dadka ugu yeerana kaana calayhi min alismi dembiga mithlu aathaami man tabicahu dadkii raacay dembigooda kaluu yeelanayo laa yanqusu dalika min aathaamihim shay-an ka nusqaamin maayo dembiyadoodii waxba intii aanu baadiyeyday baadidaas wixii dembiyay ku sameeyaan oo dhan waa lagu xariqaya adigana inta hanuunisayna hanuunkaas wixii khayr ay ku sameeyaan asna waa lagu xariiqaya xadiidkaana waa muslim baa wariyey haddii marka ay iclaansadaan toobadooda waxay ka mid noqon doonaan xadiidka qaybtiisa hore ayay ka mid noqon doonaan man dacaa ilaa hudan ayay ka mid noqonayaan kaana lahu min alajri mithla ujuuri man tabicahu dadkii raacay ajarkooda kaluu yeelanaya wuxuu ka mid noqonaya dadka ilahay xaggiisa ugu yeeraya dadka sunnada iyo khayrka ugu yeeraya ka mid noqonaya waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa
وقال إنني من المسلمين ساسو الله نيري سبحانه وتعالى يا كقول ونفسن قفك ذلك إلى الحق ويارا عمل صالح سمايا يرانا إنني من المسلمين أنا جو حنكمل ذلك المسلمين قفك في عن مجرى قفك أسرع وأخيرا أقدم بين لمن كان يدا يو نفط يدا با يددك عمدا ويهجامنayaan oo luminayaanba waxaan maaragtay ugu yeeraynaa oo aan ka doonaynaa inaan annagoo wada jirna aan ka maaragtay manhaj dhigano manhajka at-tasfiya wa tarbiya tasfiyainta iyo tarbiyadaba tasfiyaintu waxa weeye ujeedadeeda waa in la saafigareeyaa wixii maaragtay xayaatada muslimiinta ku dhagay oo shirkiya noocyadiisa oo dhan waa laga digaa madaahirta shirkiga oo dhan laga digaa bidcada munkarka laga digaa afkaarta dakhilada baadilka oo islaamka aan ku jirin laga digaa sunnadii nabiga laga saafigareeyaa riwaayadaha daciifka iyo kuwa mawduuca oo islaamku maaragtay saafinimadiisa ceebaysay muslimiintu inay horumaraan maaragtay ayad hortaagan ujeedada arrintaana waxa weeye adaan liamaanati cilmi liamaanadiisa inaan gudano oo aan dadka maaragtay sunno saafiya iyo maaragtay aan ugu yeerno sunna saxiixa aan ugu yeerno oo riwaayaadka daciifka iyo mawduuca oo la xujaysanayo la iska daayo riwaayad daciif iyo mawduuc oo la xujaystaa la iska daynayaa in la iska daayo aaraada waa min baabi awla waxyaabaha laga yaabo waxaa ka mida nin doonaya oo leh siduu isagu sheeganayo dadkaan inay fiicnaadaana rabaa u leeyahy xadiidkii sunnadii nabiga oo saxiixayd markuu arkana wuxuu la hor istaagayaa abu xaniifa ma qabin iyo shaafici ma qabin iyo axmed ibn xambal baa khilaafay iyo maaligaa ka hor yimid iyo afarta imaam ma qabin waxaas meesha la soo fariisanaya wuxuuna leeyahay dadka ayaa waxaan ugu yeerayaa khayr iyo salaax war khayr iyo salaax meeqa sanaa loogu yeerayo calaa mislika sidaa adiga ugu yeerayso meeqa sanaa lasoo waday maxaa laga faa'iiday abu xaniifa qabay iyo maaligaa qabay maxaa laga faa'iiday inaysan wax tarayn miyaynan qofku ay u caddaanaysa ma jirto miya intaasaa lasoo socday war dadkan waxa anfacaya waxa weeye wixii nabigooda uu ku sugnaa oo saxaabadii nabigu ku sugnaayeen oo taabiciintu ku sugnaayeen kaliya anfacay lan yasluxa aakhiru hadihi lumma ila bima salaxa bihi awaluha imaam malik saasuu yiri ummadan aakhirkeeda ma wanaajinayo wixii awalkeeda wanaajiye waxaanayn wanaajin maayaan annaga dhan waxaa nala ka rabaa sunnada nabiga inaan daliishano sunnada nabiga ku dhaqanno saxiixeeda iyo daciifkeeda kala saarno midda saxiixa aan ku camalfalno ayaa nala ka raba midda daciifka iyo mawduucana aan iska dayno oo aan markaas usoo jeesano acmaashayada kale aan usoo jeesano ayaa nala ka raba inta aan ku baaba'ayno sunno daciifa iyo mid maaragtay mawduuca dabagalkeeda iyo ra'yi hebel yiri ya imaam malik imaam axmed wuxuu ku yiri ninkii مسألة انت وانت مسألة شوال أرأيت كذا وكما قاسوا اذهب أرأيت إلى اليمن أرأيت يمن الآبي معناها أرأيت أني أكتي لك مسألة مرة سنة النبي الخوش هذا أرأيت إسكندر سنة يا متعلم حق رأيت غلط سنة أنا أخوف الوقت أداء لأمانة العلم ينوي لأنه تطبيقا لأمر الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان استسوا إليه سبحانه وتعالى ومؤمنين تأمر يا وعليه البر يا سمفرك يا تقوى السكة الميسة دم يا أرأيتا كما حيسوك المينة وحقاك طبعنا إن مسلمين تلغوا باريو دين كود حقا oo loogu yeero in diinka xaqa axkaamtiisa ay ku camal falaan fadaaishiisa ay labistaan aadaabtiisa ay qaataan camalkaas wuxuu kafaalo qaadayaa inuu ilaahay ka raalli noqdo ayuu ilaahay u kafaalo qaadaya sida aayaddii aan hadda ku bilownayba ya aayaddii hadarba saasaan noogu tilsaama ya ilaahay muxuu nalaa
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهكذا لنا يدينك إن تعمل بشو الدنيا هذا إن أدونك سنته والضرر في أنفسكم آخرنا إنه إلهك أرى للنقلة أي كذا لنا بلاد فيره وجود عن ضيب كافيره بل امتحان وجي أو حد عليك غرفة بس يوجيه بلاكسي جوغ أو جاتك الجوايا بل السفرش سيسيان سيكل يوجيه ووجيه الدنيا كو عذابا آخرة وحد مدانا يان الله أولي الدنيا كو عذابي جات يستياق يبلاي يدل يحاي يتوك يبحضر وكل أجرا وجينا وكاس جات عنا ما يحلاشي سعونا يا مساجد سجونا يا سلام ستكنا يا وافتما يا وفي عيني يا أسوأ صاحبي النرب قراء يسوته سيا نرشي سهاتنا يا ما كان دينك إلو عمر فلو وحكنا لنا يسأدينا إناد ولا كنا راتا آخرنا إناد مارت إلهي ذلك مجلس أدهش إيا كذا ونس لما أنت مارت يشرفتنا وروحق الجنسة سيدا مارت إلهي وكسفيي ضعيفني إلهي وكسر بخسارة ويري وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وحيث دردار من حق وحيث دردار من صبرك وحيث دردار من حق إننا هيسنه وحيث دردار من أنا صبرك كل جنان وأنكو صبرنا ودباتوين كنا رسو قاريا دعوة هي خيرك عندك ويرين لما كانت عن شيء إنه بلاكسي يبارو حجوبك خير كان وادبيا وحج على أيضا إن ما شاء الله هو يبحث خيرا وكل عمران وضم وضع أي نقطة وضع مارتي دقافت قادر لغو السيار لغو عبئنا ولا نقطيت على الله وهكذا جماعات أهل المعاصي والنوع عصوى يغدا ساسي ولا جعلي عموما تضفي عن إن الجيران مجعرة وعلينا جميعا أننا بنا وحا الشيطة ونالكربة إن منهج علمها إسلام كسحرها أنصار نورين هذا مناهج تعليمات ومناهج كفار أيلامها أي وردن كريغة الغودة قنقلي عالم كإسلام كدمانتس مناهج تاتا الغودة قنقلي وأمانت مناهج تجارتي ما عنده دوان ما مغشان جرال كانوا قدماغا إن لغا بين شيغا إن لغا هم شيغا نائب وزير بيكتا باكستان والله waxay tiri manhajkii diiniga ahaa oo madaaristeedu ay lahayd suuratu tawba waa ka xanafnay ayadoo dhan aan ka xanafnay gebigeed maadaama suuradaasu ay maaragtay gaalada jihaadkeeda ay xoojinayso iyo gaalada dhacla-ayntooda waa ka goynay tir ayada dhan kuwa qoraa kollay dembigeeda iskala hadday been sheegayaan laakiin amsaal hada waxaan maqlay aniga حتى سادات وحلو لشي كان ديفيد وحلو لبلمي انه كحذف قرانك لقد لقى يوم مدارس جامعها آيات كرب بني إسرائيل تابانا ينو كقوي آيات كرب بني إسرائيل تابانا ينو كجر لكن وصوبا نقوي وكم بقي عرب كل المسلمين تلقى يا بين كتما دوك حبس المركة وصوبا نقوي لكن هشيسك وصوقع يا مركا وأنا المنهج قال عن يلنا منهج قونئة ومثل النبي قريب النوغة تغيى وأنا يلنا كتاب الله وسنة النبي وأنا يلنا وإن وحان قالنا كقالنا إن أين نقران وحب بني آدمك كلا أقضعت أولي أغف وحاي سنعيب والنودايين وفي أمام هذي جيران منك قادم هذي بالجيران هذي كانوا أنا منهج كيجي كتابك السنة الله نقرأ أو مدارسة ترتوين بودك كسر ترتوين أيها كسر مدارس دين الإسلام كو حق على كل ذي هي علوم نافعة هي مدارس الوجود هي علوم كفارة هي كفارة مارت الجميس جوا واحد الوجود ذي أيها ترتمي عالم كإسلام ككل حديث يكون ترتمي وأي مركا بفكس أو كمل ذنك المسلمين تا يا لا ود ندرس لكن وأنا كبجرتا مسائل كنوع عايز وأنا كبجرا إن منهج كاس حق على النولايو ولوس هذا
oo kitaabka iyo sunnada manhaj oo noo noqdo culum ayadaa noogu filan culumta hadda gaaladu ay hayaan iyo midda anagu aan hayno marka laysbarbar dhigo midda iyagu ay hayaan anagu waa ka maarana umbaan gebigeed maba ubaanin walaa hal shayna ugan baan wax aan ku falayna lama arko midda aan hayno laakiin kama maarmanayo oo anagu midaan hayno waa maxay waa islaax almujtamac waa bulshada sidii loo wanaaji lahayo ayagu midday hayaana waa maxay waa technology ay leeyihiin maaragtay raadiyaa lasoo saaraa farinjiyada biyo lagu qabowsadaa baabuuraa la wataa diyaaradaa lagu duulaa waishaada kulli hada maxay tare ayaga maxay wax ugu tari weyse dad ugu noqon waayo ya waa kuwa ka baaba'ay dhinaca dadka waa ka baaba'een nin dhalinyara wuxuu igu warramay wadanka holan la yiraa waa dhifow yiri inaad aragtaa qof dhalinyaraa oo wadanka u dhashay inaad aragtaa waa dhifow kasaralkaasina waxay noqdeen uu yiri habranta ku duqoomay iyo odayaal duq ay noqdeen gobollo badan waxaa loo raadinaya in dad lagu beeraa la raadinayo dad in lagu beero kadalika america waa sidoo kale yurubta inteeda kale waa sidoo kale ya liajli dacaarada ay faafiyeen awgeed zinada iyo baktiga ay fidiyeen darteed ayaa dadkoodii cumraani lahaa oo dhulka camiri lahaa ay yaraadeen oy baabeen haddii la yidhaha xagga dhaqaalaha wax dhaqaalaha naflayayaan lama arko waa baaba'siyi marka anagu midda aan haysano waa ka maarana ayaga xaqiiqadu waa saas annagu waa ka maaran laakiin ayagu naga maarmaan sababta anagu waxaan ka shaqaynayna bulshadu ha wanaagsanaataan dad wanaagsan oo dayibaan ka shaqayna ayagu waxaan ka shaqaynaya dadku inay eber noqdaan ay baaba'aan ay ka shaqaynayaan ha oy tartiraan marka maxay taraysaa technologyga ay haystaan ya wax ay ku taraysaa lamaarka marka kitaabka iyaga iyo sunnada nabigu hanagu filaadeen ayaga aan soo noolayno inaan manhaj ka dhigno oo madaaris aan furno kitaabka iyo sunnada lagu barto inaan furno oo ilmaha iyaga aan barno kitaabka iyo sunnada aan barno calaa maa kaana calayhi salafuna saalix waa inaan ku sugnaano sidoo kale waa inaan tirtirnaa haddii a la yidhaaho waxaa la yidhaha jumuud almadhabi madaahibta lagu qalalayo inaan tirtiro shaaficiyaan nahay xambaliyaan nahay abu xaniifaan nahay maaligaan nahay hebeliyaana la yidhahay waxaas waa inaan tirtirnaa haadaa jumuud madhabi waxuu taraya lamaarka kitaabka iyo sunnada bisaa waxan baxay ha kitaabku muxuu sheegay sunnadu maxay sheegay ya madhabeel muxuu qabay waa jumuud madhabiya waa waxaan dadka xataa la fahamsiin karin qofkii muslima oo hadda yimaada lama fahamsiin karo diinta iyadu waa mid kaliya afar madhab aan leenahay maxay tahay diinta iyadu waa midaad leedihiin afar madhabna waa sheegayni war diinta iyadaa mida iyo afar madhab maxay tahay ha balbay mid iyo afar aad hal mar wada sheegay afkaaga ka wada maayo foolximadeed iska daa waxaas haadaa jumuud madhabi faraanka kaa min alla ninkii caalima oo asagu diinka baxsi kara oo ijtihaadi kara facaleyhi an yajtahid ninkii asaga ku xiga oo wax taxqiijin kara facaleyhi an yatabica daliil ninkii muqallidana nin kastoo caalima oo markaa jooga caalimu asagaa sheikh u ah ha weydiisto mas'alada uu rabo maanta ku meel gaaro waa muqallid mugta muqallidina wax meel dhigta maaha mugta sidiisa miskiin waayo waxa uu yaqaan mala waa caami waa jaahil culamo maaha kaliya mas'alo oo maanta ku noolaado rabaa soo ma mas'alada maanta ku noolaada ninkaan caalim ha yidhaaho sheekhow sidaan maxaan ugu dhaqmaya iska yidhaha bis ha ya hada huwa alxaq maa inuu meel la fadhiisto madhabablaana la yidhaha ma iyo tacasubka xisbigaana waa inaan baabeeno xisbiyada loo kala tacasubayo oo heble laleeyahay maanta anoo meel meesha amaraya ayaa masaajidka tacliiqiisa maqlaya ninaa wuxuu leeyahy wax tacliiqinaya 20 firqa wadankan joogta asaga wuxuu kamid yahay firaqda kamid yahay naftiisa waxa firqaya dadku ku jira ay fiirday shuf 20 firqa wadankan joogta kuleeyahy midda asagu yahay habaabaasho ha jaamacna midda kale yahay habaabaasho faaraxna tirtiro dhammaantood afartooda dad muslimiin ah wada noqdeen oo walaal oo meel wada socdo ya ma in la yiraahdo 20 firqa joogta oo waxba laga qabay maalin walba la leeyahay waxba laga qaban maayo ha
أديك فرقة كنت وحلا الفرقة جوت والكاس كلام التعصب الحزبي عن ترترن هذا ضدك يا اللي بقى النور هذا دون إن قارن يسكت النور يا والله إن قارن سيدا اللي سكت عيد حزبي لنا كحبلان ليرا أنا سوفيان ليرا كوان اتحاد ليرا كوان تبليغ ليرا هداية أنتقنا حقا فريسنا بارو محام فدنا وحاس احترامنا حقيقة وحوين أن قال اللي سكت عيد قال ومديسين هاي كفر جيس ومديسين دقال كاغا ومديسين كوحا كلامها أبو أدي قال كوح راس وإلى بابية كونوا عباد الله إخوانا وحدا هاتين الدوامة دي الله وراء رساسا نبونا لي وكا مركا سنالي هي كتابك وإنا نكودنا وإنا نهانا كوالفولية سيد إلهي قلنا عمري وقلنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سؤال شو رئيس وحولي سائل كان شيخ وحن ويدين يا حديثك نبيك صلى الله عليه وسلم ويري قف ميت لفتيسا أول الجبيو وأصيغ أول الجبيي مالو عام لغو جبيي كورن هدو فالصحو قفك انتو صدما ودوه واليغو تصرفي كرا جيركيغا أما داد قرابة أي أغلادان وبنانتا إن الاستعمالو مصر بنانتا إن شيخا أيها إن شيخا أيها يروا بنانتا هاي من باب الضرورة يكون بنانتا هاي صحيحة صحيح معها مثلا لا تيجي جوابه. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرتوحن تعالى إن الحديث قدر مصنع وقدنا أدنوها يدين مركز حديث سوحة من جنة إن شاء الله هنكد جوابنا وأنه عقدمتها مثلا هذا الحديث سوحة من جنة دي المركز سهرة كيف كتب بين دانا وقال توفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فضيلة الشيخ عندنا سؤلا سمعنا من عندكم هل الجهاد اليوم أفضل من تركه؟ إذن فماذا تقول؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ما أردت من قرمايو ما قرأنا صاحب من جوا إن لك مغلطة بالكلمة يا كلمة إن لك مغلطة إلا حقيقة جوا نقول روح إنك مغلي أدينك روح إنك مغلي جهاد كمانتا هذا روح أنا مغلينا مشي وحنا مغلطة صاشرة نكان ورد سلالش وحنا مغليها عدي مدان كانوا بحاول سمعنا أن السلفيين قالوا عصمة الدم الكافر اليوم كعصمة الدم المسلم فما حقيقة ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندانا وجه لهم المغانية وجواب استهشاء أنا ماشان الحمد لله هل كان محاضرة كان لقني وحي عصمة الدملة وبني آدم أنا واشاقني وحان نري بني آدم وحلوقة بيا مركة ولا بقى مسلم يقال مسلم كوا معصوم الدم حقا بك قال أسواره قال سدح قيبوض وقيب سما ذنبي معاهد حربي سدح لاس وقيب سما لما هو معصوم الدم لما قال بس كم معصوم الدم هل كان ابو عبديني ننكي اسوي خلاف كيني كرم مسألة مهلا سين قال كذنبي وحوى قال كاللوغي مثل الخوة والمسلمين تكون جمادين كان فاضي مصر وكل مصر ضدك قبضي الليلة وما انتو عمر بن العاص قفسنا ويمت ونصاري عيان وكالحبشة سيدك حبشة ودلك حبشة الدكنا
واجي دعوة الإسلام كو إيماني وكان نصارى الشام شام نصارى دي جوكتي أما هنقضي النصارى دي عرب تاعد أما هنقضي الكوي رومانكا وحرمان هنقضي أما يهودي والنبي قو يمد ومقالة المدينة قو يمد وحاسو دو حلال قال كنوعاسو قال ذمي ألير مجلس وقلتي النبي عليه الصلاة والسلام وحبلا أيو كارضي مارتي ذماليدا هي ذمالي على إلالية وحبلا أمد كوير أهل الذمة أليرا ومعصوم ليقول نكي كدولي كالديارة لوي ودعي قال كانت معصوم معهن ننكيلا قال كنوعاسو ذمي قال معصوم معهن ننكيلا وكو قال كم واحد أسنوى معصوم محل النبي عليه الصلاة والسلام قفك يدلو بيري لم يجد رائحة الجنة وإن رائحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا قال كم واحد قفك يدلو جنة عرفت إذا هل الماء إنه قرائس كبداي محل عدينة واحد قف مسلمة والجنة المتيسة إسلامي ما كل متيسة الجنة يؤدي يا واسمديس وإنه معصوم يهي درتين هل قال معصوم هين وايو وكان حرب ذا الدراي أيها الإخوة والأخوات الكام وحاكل ما تقيبتي لبعض انتين هو كل منه دروس كلا قيمة بدن وصدان وكلا وحين كاتقينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات ولاله تسجيلات ابن حنبل الإسلامية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله.